dhegaystayaal qoyskii reer miyiga ahaa ee Soomaaliyeed wuxuu ku dhisnaa hawl wada qabashada sayga iyo oodidiisa labadooda mid ahaan haddii hagar ama karti darro ay ka timaadana gabalka qoyskaasi waa dam weligood bana xubnaha qoyska hawluhu way u kala qaybsanaayeen sayga waa ku hawsha sare waa dhaqaalaynta xoolaha qaybtooda iskinka loo yaqaan iyo u sahmintooda ceel u qodidooda iyo aroorintooda dad iyo wadaan u samayntooda iyo waraabintooda diraacaha kulkulul hayaamintooda iyo geedigelintooda xiliyo u dhigidooda iyo colka rabidooda oolidana waa ku hawsha hoose waa dhaqaalaynta ariga iyo maqasha dhismaha aqalka iyo samaynta saabaanka uu ka kooban yahay amaba hoos yaal sida haanta iyo dhiisha dhigta iyo raarka jilka iyo udubka adabta iyo xashinta waxaad ku dartaa lulista caanaha iyo subaka bixintooda bislaynta neefka uu reerku iskii u qasho amaba marti soo gabtida uu u loogayo iyo indha ku haynta dhaqangalka agabta uu reerku ku aqdaanto intabase waxaa ka culus oo oolida u gaar ahaa korinta dhallaanka iyo daryeelkooda tan iyo maalinta ay ciidan noqdaanoo ay xoolaha la dibad baxaan abaar iyo aaranba marar badan ayaa waxaa la arki jiray in ninku intuu meel iska fadhiisto isaga baashaalo amaba uu waalkiis shax la dhigto ooliduusa waa beriga ilaa cawaysin dambe mar ay hawlaha ka nasataa dhif bay ahayd sababaha dartood inta aantada kaga dhammaan gabadha ina hebela guurkeeda wuxuu barbaarkii reer miyigu u kuurgeli jiray hawlahaas ad adag ee laga filaayo inay tahay qof ka soo dhalaali karta iyo in kale geela reerkooda ee curadda iyo qaankaba leh halaha uu jecel yahay inta uusan gacantiisa ka bixin ee xagga aabbaheed aanay uga meerin wuxuu iska hubin jiray inantiisu inay u qalmi karayso inay xoolo aqoon tahay gaari farsan inay ku tilmaaman tahay reerkana ay ku filaan kari doonto maalintuu isagu meel uun u sadcaalo mar walba wuxuu barbaarku maanka ku hayn jiray mahmaah saddexley ah oo odayadii hore uu ka maqli jiray tii ahayd nin maalin ma gaadhid ninna sanad ma gaadhid ninna weligaa ma gaadhid nin maalin ma gaadhidoo waa ninkaa faras wanaagsan ninna sanadkaas ma gaadhid oo waa ninkaa xoolo dhaqasho wanaagsan ninna weligaa ma gaadhidoo waa nin kaa naag wanaagsan wuxuu kaloo xusuusnaa heescayaareedii ahayd suul ayeeye kuu galay iyo sinti waa maguuraan wuxuu garanayaa in la odhan jiray wiilkaagu maalin buu hiilkaaga baahan yahay waana maalinta aad hooyadii doonayso sidaa awgeed la tashiga ayuu badin jiray degmadii gabar wacan loogu sheegaba intuu kabaha u ilado ayuu habeena idil ku dhexi jiray keligii cad oo madowna dhabbaha ma qaadee rag dumar yaqaan meelana ayuu kaxaysan jiray waa rag wax la soo dooro oo inanta uu ku dambayn doono eeddeeda wax ka soo qaada wuxuu ka digtoon yahay inuu ku dhaco meeshii xumayd ee cabdigahayd uu sheegi jiray markii uu lahaa kolka horeba guur waa milgiyo maasi kala waaye ragga qaarse uma meel dayee wayska mehersaade anse waxaan ka miidhaa halkaan lagama suugayne haddaan lala mashaawirin tolkaa adiga oo maad leh oo lagama maarmee tashiga odaya loo miirin ninkii keligii maalootiyaa meel xun wow hadhis dadaalkaas ayaa ragga qaarkii wuxuu geyaysiin jiray inay doobguunnimo ku weynaadaan cidhidbaar iyo waxhubsasho siday ugu jiraan ayay mararka qaarkood soddongu iyo xaabxaab ku gaari jireen wax walbase sidaad filanaysay kuguma soo baxaan kolkol buu barbaarkii naagadoonka ahaa ilduufaa oo marka uu dhista kadib durbadiiba ogaadaa inanta uu guursaday inaysan ahayn tii uu haamin jiray kaalinta la rabo inay buuxisana aysan ahayn tu ka soo bixi karta markaas oo kalena raggu laba uun ayuu mid noqdaa nin degdega oo gabadhii oo udub cad ah haddiiba fura kana samra geel iyo xoolo kale wixii yarad ahaa ee laga daduucay siduu isleeyahay wuxuu diidayaa inay la gaadho maalin aanu ka maarmi karin oo intay carruur u daadiso ay ku fiddo reerkana dabadeed nin iyo naagba uu isagu u noqdo mahmaahda tidhaahda
cisho iyo naag xunba waa la dedejiyaa intuu ku dhaqmo ayuu xarigeeda u sii dayn jiray isla markiibana siduu reer cusub ku dhisan lahaa falowgeed qaban jiray ninka sidaas yeela badanaa waa la daraabaa fudayd baa lagu xantaayo waa lagu canaantaa isna waa isdaafacaa oo furiinka wixii u geeyey ayuu xigtadiisa dhow wax uga sheegaa inkastoo raggii hore ay ka sariigan jireen ruux dumara oo ay kala tageen inay ceebaheeda ku dheeraystaan si haddaba aan taa u tusaaleeyo aan soo qaato sheekadii uu ka tegey ninkii gabadha la aqalgalay ee kolkay habeen qura la hoyatay waa berigii inta furay aan saddexdeedii u kala reebin raggii ay xigtada ahayeen markii ay u yimaadeenoo wixii uu faray ay ku canaanteen sababtana weydiiyeen ayuu yidhi waxaan ku furay 5 waxyaaloodoo ay tahay maxay yihiin markii la haybiyena wuxuu ku jawaabay waa xoolo mubaddaroo waa ayaan daran tahayoo waa dhaqaale xun tahayoo waa camal xun tahayoo waa qumanyo raggii ayaa hadalka ninka la amankaagay kolkaas buu midkood kula soo booday war hebelow gabadhuba habeen keliya ayay kula joogtee sidee baad ku ogaatay waxa aad ku sheegayso inay tahay wuxuu yidhi 5 waxyaalood ee aan idiin sheegayba inay tahay baan idiin marinne aad ii dhegaysta waa marka koowaadoo waa xoolo mubaddar oo kabihii oo aan iridda aqalka ku soo ilaaway ayay ma soo qaadina ka soo tallaabsatay oo gudaha iska soo gashay marka labaad waa ayaan daran tahayoo intaan waagii bariyin ayaa la xaday marka saddexaad waa dhaqaale xun tahayoo digsiba inta dabka saartay wax alla wixii xaaba ahaa ee ay haysatay ma kala reebine mar qura wada shidata marka afraad waa camal xun tahayoo dabkii oo huraaqaaya dabayshuna ay hugfinayso ayay afuuftay oo haddana afuuftay oo gunuunucday cabbaar yarna isagaaba iska ololi lahaaye u koran weyne marka shanaad waa qumanyo oo dabkii ayay habaartay waxayna ku tiri imad alla daad ku seexi wax yar kadibna roob meel uu ka soo curtay aan la aqoon ayaa seexshay kiiyoo aan waxba lagu bislaysan ninka sidaas u degdega waxaa labeeya nin kale oo wixii qoonsimaad ah oo uu gabadha cusub ku arko dulqaad u yeesha wuxuu isku dayaa inuu waaniyo oo wax u sheego gafafkeeda inuu tuso ilaa ay qabatintana uu hawsha reerka ku garab galo barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa dhegaystayaal ha inoo joogo waa inoo toddobaadka dambe iyo tusaalayaal kale oo ku saabsan ninkaas aan degdegine araddii saluugu ka galay u kaadiyey waaniyey ku fara adeygay dabadeedna ka ilma dhammeeyey dhegaystayaal goor la joogo iyo meel lagu sugan yahayba dadku markay isguursadaan dabinna ay wada joogaan waxaa midba ka soo ifbaxa dhaqankiisii runta ahaa iyo dabeecadihii uurka hooyadii uu kala soo baxay ee uu eebba ku abuuray maalmihii xodxodada iyo hadal macaanka la soo dhaaf waayihii kala gabashada ee ku waliba ku dadaali jiray inuu xuntiisa qariyaa shiciirte nolosha quruxda badan xilligii la isu sawiri jiray la soo gudub waxay fooda geliyaan xilli kale oo kaa hore si walba uga duwan waxay is arkaan iyaga oo bartanka ugu jira xilli aan nasiina oggolayn oo si joogta ah tacab adduunyo ugu baahan xilli labada qof midba kartida dhabta ah ee uu leeyahay ay soo dibadbaxdo markaas oo kale wax ugu wacanba sayga ayaa hor dareema goldaloolooyinka ay gabadhu leedahay ee ay reerka la soo gashay barnaamijkii toddobaadkii hore sidaan ku soo sheegayna raggu markaa laba uunbuu mid noqdaa nin degdega oo haddiiba fura iyo mid wixii qoonsimaada oo uu gabadha ku arko ugu dulqaata iskuna daya inuu waaniyo oo wax u sheego howlaha reerkana ku garab galo haddii ay dabeecad kulushahay oo ay ka dudo lama dudee waalidkeed iyo walaalaheed ayuu la kaashadaa marjo haddii ay tahayna dumarka isaga xiga ayuu kaalmo uga jirayaa waxay u badan tahay dulqaadkaas in la mahadiyo oo da ama laba kolkay dhasho ay hagaagto muskuluxna ay ka noqoto
hortii wixii galdaloolo ahaa oo markay cusbayd lagu ogaaday. labada ninka dulqaadka lihi haddii uu gabay yaqaan isaga ayuu maciinsan jiray. waxay la ahayd hadduu hadalkii wax ka tari waayey dhaqanka aanu jeclaysan ee gabadha uu ku arkay inay maansadu wax ka beddeli karayso. sidaa darteed baa waxaa suugaanta soomaalida daf ka ah gabayo canaan iyo waanaba isugu jira oo maansayahanadii hore dumarkii ay qabeen qaarkood ay u tiriyeen. raggaas waxaa ka mid ahaa gabya aan magaciisuna soo gaarin, ha yeeshee wariyayaashu ay nagu soo simeen tix uu kula hadlay haweenay u dhexday. sidaynu tixda ka garan doono wuxuu gabyaagaasi aad u saluugsanaa waxqabadka afadiisa oo siduu ku eedaynayo ka soo bixi weyday howlihii hoose ee ay reerka ugu qaybsanayd. dabadeedna wuxuu ina dareensiinayaa xusulduubka iyo dadaalkiisa faraha badani inay barkumataal yihiin, marba hooyadii qoysku haddii ay dhinaceedii gabtay barbarkeediina uu bakayla qaleen noqday. wuxuu ku soo gabagabaynayaa dhagaha afadiisu inay jufan yihiin oo waxba aanay ka maqal, isna uu waanadeedii ku daalay ilaa uu isula ekaaday haan hoosta ka daloosha nin biyo ku dhaaminaya. wuxuu yidhi, hawo duniyadeed waa intaad garabba haysaaye hal haddii aad leedahay labaad ku hindisootaaye hir markii aad gaadhaba mid buu kaa horbixiyaaye. haddaad haalig iyo maalig tahay hagarla'aan xoogga aad haadka duura iyo sidii haatufka u roorto asaan reerka hoos laga dhaqayn kaama hawl baxo haantaan gun loo tolin biyuu ku hakan maayaane ku harraaday naag yahay intaan hoyday ku lahayn. sida ninkaas waxaa badnaa rag furiinka ka maagi jiray oo yaragtii uu bixiyey dartiis haweenayda ugu mintidi jiray amaba ceeb iyo fudaydba uu la ahaa. arrintaana waxaynu tusaale uga dhigan karaynaa gabay caan noqday oo uu tiriyey maansayahanadii hore nin ka mid ahaa oo allaha u naxariistee maxamuud cali beenaley la odhan jiray. haweenay ayuu maxamuud jeer guursaday. kolkaas buu kala kulmay dhaliilo siduu islahaa aan loogu adkaysan karinoo haddii uu ku ogaan lahaa aanu markeedii horeba ku galeen. dhowr da-ood ayay u dhashay, waase ka soo rayn weyday. sida tixdiisa inooga muuqan doontana in badan ayuu waaniyey, si walbana wax ugu sheegay, rabbise ma soransiin. maalintii dambe ayuu malaha is yidhi haddaad u gabaydo armay ka soo raysaayoo sida dhaamataa. markaas buu u tiriyey tix aan qaboobayn oo dhaliilihii uga muuqday uu kaga cabanayo. oo maxay ahaayeen? marka hore inay tahay carruurtii ay iyadu dhashay ruux ay dayac ka dharagtayoo wiilkeeda dadabka ah inay sinta saarto lagala samray. marka labaad inay tahay labadii isaga dhashay oo waayeel ah qof afxumo ula taaganoo aan xurmo iyo daryeel toona u haynin. marka saddexaad inay tahay ruux uu kala quustay wadaadada isaga soo tamadiya wax kaleba iska daaye inay weese u keento. marka afraad isaga oo ay dhallinyara weheliso hadduu qoyska yimaado inay tahay ruux aan cidna u xilqabinoo aan lagu soo karin ardaa wanaagsan inay gogol ugu fidiso. marka shanaad intii uu qabay weel culan caana ay ugu keentay inaanu weligeed ka guddoomin. marka lixaadna inay tahay arraajo aan ogadeeda biyo iyo dhaashi toona ugu roonaan dan iyo daaradna aan muuqeeda ka lahayn. wuxuu yidhi, naag yahay wadnaha kuuma gelin waanadii hore ee weedhaan qalbiga kuugu riday warafku kaa qaadiye wacdigaan ku faray waadigaan wagar axaalayn. haddaan weyna kaa qaban asaan waaxid kaa celinin walaaliinta ubadkaaga waa lagala weecdaaye kaa waayay wiilkaaga ood sidata waa noole. waayeel ciro leh weer xun waa lagala waabtaaye kaa waayay inaad waalidkay waxu lillaysaaye. wehel culimo kama maarmi karo aniga oo weyne kaa waayay weysada inaad weli u qaadaaye. dhallinyaro waraanshayn haddaan waabka soo geliyo kaa waayay meel wacan inaad wagac u siisaay. xigta weehad laga soo liso iyo welis dhanaankeeda kaa waayay weel culan inaad wax igu siisaay.
wejigaa la mayraa markay waabarkii tahaye ma werwero jidhkaan lagu wadayn weelka dhaashiga kaa waayey weligay inaan waana kuu bogo qofka dumara ee uu sidaa ugu gebiyey in cali beenanay gadaalkii ma furay jawaabtiisi waxay noqotay maye waa isku gaboobeen markaas baan dhab u gartay wixii ay u jeedeen ooryahooda ay isla keeni waayaan raggii ku odhan jiray adna ilmada iga dhammee aniguna dhashaan kaa dhammayn raggii isku waanin jiray nin iyo naagtii colna ma aha nabadna ma aha raggii ku maahmaahay dumar nin u fiirsaday kama ilmo dhalin dhegaystayaal waxaa jira arrimo guurka raajiya oo taabagal ka dhiga iyo kuwa inuu dhexda ka kala jabo soo dedejiya kuwa raajiya waxaa ka mid a sayga iyo oorida oo midba intuu ka kala dabeecadiisa barto isugu dulqaata kuna tashada khilaaf yaroo soo dhex galaa in aanu reerka ka burburin waxaa kaloo ka mid a sayga oo markiisa horeba reer ladan ka soo jeeda sidaa darteedna isaga oo hanti ku filan haysta qoys noqda waxaa kaloo in guurku sii jira suuro geliya jacaylka carruurta yaryar ee labada qofi ay isu dhaleen kuwaasoo ay hubaal tahay inay sidac iyo saxariyar ka dhargi doonaan haddii ay labada waalid kala tagaan arrimaha iyaguna cimriga guurka soo gaabiya waxaa ka mid a masayrka waxaa kaloo ka mid a labada qof oo midkood uu anshib kulul yahay isla markaasna aan kan kale ku dhowrin waa tabta ay badanaa u dhacdee erayo aan laga fiirsan oo aflagaado xambaarsan ayay isdhaafsadaan gacanka hadal baa ka dhasha isaguna wuxuu keenaa furiin iyo in la kala dhaqaaqo dabadeedna sidaas fudud buu qoyskii dhammaa ee dhisnaa ku baaba'aa sidaan haddaba kol dhow carabka ku soo dhuftay guurka kuwa eebba carruur ka abuuraa inuu raago ayay u badan tahay ha yeeshee kii aan ubad ka beermini waxay u dhowdahay inuu sii socon waayo inkastoo laga yaabo markoodii hore inay jacayl isku guursadeen haddana iyaga oo aan isnicin ayaa kol dambe labada mid waliba dareemaa baahi hoose oo u qabo wiilal iyo gabdho hooyo ama aabba ugu yeera wiilal iyo gabdho sida kuwa darisyada u sawaxma oo dhagdhagta qosolkooda yaryar ay ku muraaqoodaan alaabta aqalkana kolba qaar ka jajabiya labadaas oo kale marka dareenkaasi uu midkood ku soo noqnoqdo ayay u badan tahay inay isfasaxaan oo ku waliba uu reer cusub amaamudo ama uu keligiisba iska noolaado waxaa la qabaa kala taggaas oo kale inaan cidina khasaare ku qabin wax ku ba'samaana aana jirin guurka caynkaa ku dambeeya waxaa allaha u naxariistee tix gaaban ku soo qaaday gabyaagii weynaa ee samatar baxnaan la odhan jiray isaga oo marahayga waaye aragnimo qudhiisa soo martay weli gocanaya ayuu erayo aad u kooban ku tilmaamayaa mar walba xiriirka aan adkayn ee u dhaxeeya sayga iyo haweenayda u dhaxda ee aan carruurta u yeelan afada sidaasa ayuu ku masaynayaa hal qurbacii ay dhowaanta dhashay laga qalay ama uu si uun kaga baxay markaasoo kale soomaalidu waxay tiqiin farsamo hashaa lagu maalo iyada oo aan ilmihii tebin cad ka mid a haragga qurbacii ama nirigtii ka dhimatay ayaa lagu sabaayo neefkeedii looga dhigaa waa waxa maqaarka loo yaqaan ee had iyo jeer uu geeltiruhu ka daba wado ilaa ay ka guraysana ay hashu ku godlato samatar oo ka mid ahaa soomaalidii dabeecadaha geela aad u tiqiinay siduu sheegayo haddii kuraygii maqaarkaa lagu ogaa uu lumiyo dalaartaas oo qura ayay hashu u baroorataa maalintaas baana u dambaysa caano laga maalo wuxuu yidhi haddii aanay ubad kuu lahayn aadan iyo xaawo waa igar maqaarkay lahayd inama tuureene afarteeda naas kama soo haraan ololka maantaas kastaba ha ahaatee soomaalidii hore iyo tan maanta markii la isu eego tii hore ayaa furiinku ku yaraa hase ahaatee wuu jiray maxaa yeelay bulsho aan laga aqoon furiinka dunida laguma sheegin waa hab loo soo rogay in lagu daweeyo oori iyo saygeed lagala quustay inay ka heshiiyaan khilaaf soo dhex galay waa hab diinta islaamka ku bannaan hase ahaatee sida laga wariyey nebi maxamed naxariis iyo nabadgelya korkiisa ha ahaatee waa waxa intii uu xalaaleeyey uu eebba ugu nacab yahay runtii soomaalidii hore furiinka kuma degdegi jirin
ninka badsadaana kuma ammaanayn. ragguse iskusi kama ahayn, waxaa jiray qaar mar keliya ku tallaabsaday iyo kuwa dadka hablahooda fudayd ku soo xeraysta, fudaydna reerka kaga saara. aan haddaba tusaale u soo qaato laba gabyaa oo ka mid ahaa raggii guurka iyo furiinka badanba lagu bartay. ninka hore waa Cilmi Cismaan oo gaadashi lagu naanaysi jiray. wuxuu ku caan baxay arrimo bulshadii ay degaan wadaagta ahaayeen ay la ahayd inuu kaga duwanaa, laguna xaman jiray. maalintii dambe ayay kulmeen nin ka mid ahaa raggii ay kaftami jireen. kii baa ku yidhi, niyahow waa lagaa wada yaaban yahay. marka koowaad haddii lagu arkaba waxaad sideetaa kitaabka dayrabiga la yidhaahdo ee falka iyo xidigiska laga barto. marka labaad waxaa tahay nin geedi iyo guurguur lagu jaanjaamay oo wax yar aan xelana ku nagaan, dadkana aan la degin. marka saddexaad dumarka aad guursato waad dishaa, haddiibana waad furtaa. marka afraadna waa beriga ilaa fiidka goor noolba faal baad dhigaysaayo barida ayaa dhulka kuugu aasan, ciiddana faraha ayaad kula jirtaa. gaadashi arrimahaas mindaba ma inkirin. ninkii xifaalaynayay iyo dadkii ku xaman jirayna tixgabaya ayuu ugu jawaabay, isaga oo u sheegaya sababta uu tu walba u bannaystay. wuxuu yidhi, dayrabi kitaab buu sitaa, diinta gabal weeye, geedduu dawaaraynayaa, daaqsisami weeye, naaguhuu dilaayoo furaa, damackawaa weeye, faal buu daliilinahayaa, dood nin raga weeye, afartaa wixii lagu daraa xan iyo duuf weeye. riyaaga labaad waxaa la odhan jiray Qoolif Cali Xirsi. isaga iyo gaadashina degaan wadaag bay ahaayeen. sida la wariyey wuxuu isna ahaa nin guur badan, isla markaasna aan furiinka isha u marmarin jirin. min weyntiisii oo ay isku gaboobeen markii laga reebo, lama sheegin haweenay kale oo kabil agtiisa ku nagaatay. dhowrkii biloodba tu horle ayuu keeni jiray, dhowr kale kadibna wuu furi jiray baa layidhi. inkastoo carruurta ku dhalata guurarkaas cimriga gaaban ay min weyntu u korin jirtay, haddana kol dambe ayaa waxaa la soo gudboonaatay arrin uu maarayn kari waayey. haweenay maraha la gaaray markii uu furi lahaa ayaa uuraysatay, dabadeedna gabar u dhashay. gabadhaas yar oo markaa nuugaysay darteed ayuu ugu kaadiyey, isaga oo aan ku jecsanayn. markaas buu tiriyey tuxuu naftiisa ku haaraamayo, kagana shallaayayo dumarkii badnaa ee uu soo guursaday. isla dumarkaas ayuu wada liidayaa, welibana habaaraya. dhinaca kale wuxuu Qoolif ina dareensiinayaa midaan uu hadda u mindiyalisanayaa inaanay kuwii hore waxba kaga duwanayn, goor horena uu iska sii dayn lahaa haddii gabadha yari aysan weli naaskeeda ku dheganayn. isaga oo haddaba ka qoomamoonaya inay ku fiday oo ay ku lamaanaatay ayuu yidhi, nin hadduu wax badan liiliyo oo laqan ku weynaado inkastuu lab yahay, jeer dambuu rag ugu liitaaye, kullu go'ay intaan legad lahaa, naagatiiladane leeleesha nooliba anay laasun ii tahay, weligay mid lagu leecay baan labu idhaahdaaye, haddii ayn luntadu nuugihayn lurima haysteene, allahayow laciiftada maxaa igu lamaaneeyey.